berri insha allah taariikhdu markay tahay bisha tobanaad shanteeda 2022 saacaduna ay tahay 12 p.m. 12 Justa Eastern Time waxaa furmaya barnaamijkii caanka ahaa ee DV 2024 Lottery waa barnaamij bakhtiyaa nasiiba sanad walba Mareykan xilligan markii la joogo waxay u talagaleen caalamka idil u furaan inay dad ku qaataan wadamada caalamka oo dhan ka soo qaataan ayagoo siiya permanent resident green card sanadkan waxay ugu talagaleen inay soo qaataan 55,000 oo qof caalamka ka soo qaataan agaarta meel walba joogtaan waa salaamantihiin waa maxamed faarax haddaad videogan social media ku artay dhammaan fadlan la wadaag dhammaan asxaabtaada Facebook iga buuxsamay fadlan follow soo dheh YouTube-kana subscribe isaar dhammaan social media intaa ku jirtidna video ku artid la wadaag asxaabtaada okay diversity visa 2024 barnaamijkan lotteriga ah sanadkan Mareykan wuxuu ku qaadanayaa 55,000 oo qof shuruudahana waa sidan soo socota qofka buuxinaya waa in uu booqdaa website-ka State Department-ka EDV website aniga waxaan idin kula wadaagi doonaa qoraalkayga hoose website-ka aad ka buuxinaysid insha Allah halkaas ku fududaan doonto inaad kala garisid ka bacdi aad ka buuxisid ama aad la wadaagtid dhammaan saaxiibada inta jecelna barnaamijka buuxiso shuruudo kale oo laga rabo waxaa waa inaad haysid passport picture color picture oo passport haafa oo background-kiisa gadaal cad yahay email-na leedahay 3 telephone wadanka aad joogtid meesha aad joogtid inaad passport leedahay oo passport numberkaaga aad gelin kartid haddii aad passport lahayn meeshaas waad ka escape garan kartaa waa ka boodi kartaa oo laakiin haddii lacala lagu qaato oo barnaamijka bulshada ku guulaysid waxaa qasab lagaaga baahan yahay passport inaad haysatid qodobka kale ugu muhiimsan waxaa weeye inaad haysatid shahaado dugsi sare high school degree ama 2 sano oo shaqo xirfad leh 2 sano oo shaqo xirfad leh ayaa lagaaga baahan yahay haddii aad haysanin high school degree haddii aad jaamacad dhigatid kaba fiicanba intaas shuruudda intaas kooban ayaa laga rabaa barnaamijkan ma buuxin karaan dadka wadamadan baasaboorkooda haystaan Bangladesh Brazil Canada China aan ka ahayn gobolka Hong Kong Colombia Dominican Republic El Salvador Haiti Honduras India Jamaica Mexico Nigeria Pakistan Philippines South Korea UK aan ka ahayn gobolka la yiraahdo Northern Ireland iyo sidoo kale Venezuela iyo Vietnam wadamadan looma ogola inay buuxiyaan laakiin haddaad baasaboor Soomaali haysid oo lagu ogolnaa buuxisid baasaboor Kenyana iyo baasaboorada sida wadamada kale oo Yurub dhammaantood aan ka ahayn UK gobolka Northland aan ka ahayn dhammaan waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo baasaboor Yurub haysto barnaamijkan waa lagu ogol yahay green card and lottery tartiibka in aad buuxisid ciddii ku guuleysata barnaamijkan waxaa la sheegi doonaa hadduu alla yiraahdo May 6 2023 waxay booqan doonaan isla State Department website ka buuxiyeen ayay booqan doonaan saacada 12 p.m. markay tahay aan loo sheegi doonaa waa sanadka dambe May 6 2023 ayaa loo sheegi doonaa ciddii ku guuleystay hadda waxaa laga rabaa inaad markaad buuxiso application-ka confirmation number-kaaga inaad printer gareysid markaad printer gareysid ama aad sawirka qaadatid si hadhow markii la furo May 6 2023 ciddii ku guuleystay aad aragtid markiina waa inaad confirmation number-ka gelisaa da'daada aad gelisaa first name-kaaga last name-kaagana gelisaa wuxuu ku leeyahay ama waad ku guuleystay aw guriyo ama wuxuu ku leeyahay maada ku guuleysan haddaad ku guuleysatay safaaradda kugu dhow ayaa process-ka bilaabaysaa waxaana la rajeynayaa 2024 in lagu soo qaado green card-kaaga lagu siiyo Mareykan aad imaadid isla markaad ka shaqo bilaawdid ama aad waxbarashadaada soo wadid fadlan barnaamijkan ka faa'iideysta dad badan ayaa sanadkii hore aan u sheegay ka faa'iideysteen haddana ka faa'iideysta haddaad baasaboor haysanin dhib malaha waa ka boodi kartaa laakiin waxaa muhiima hadhow haddii lagu qaato inaad baasaboor lagu weydiinayo baasaboorkii aad keentaa sidoo kale haddaad Mareykan joogtid ood u buuxin kartaa dadka familkaaga ehelkaaga jooga meel kale kaliya waa inay kuu soo diraan macluumaadkan hore idinku sheegay oo dhan waa inay kuu soo diraan sida aad ugu buuxsid haddaad caawin u baahan tahay waxaan joogaa Banaadir Mall xafiiska 29 hoos halkaas iigu imaaw aniga ayaan kaa caawinayo iyo saaxiibkayga Cayto ugu dambeyntii waxaan rabaa sidoo kale inaan idin la wadaago Mareykan ayaa sanadka dambe wuxuu qaadanayaa qaxooti 125,000 oo qof caalamka oo idilka qaadanayo 40,000 wuxuu ka qaadanayaa qaaradda Afrika qaxootiga ugu weyn Afrika ama caalamka ay raadeen wuxuu ku yaalaa Dadaab refugee camp Soomaali kumanaan kun oo qof ayaa joogto
40,000 ayaa la qaadanayaa haddaa xeryaha qaxootigaas aad ku jirtid rajo ayaad leedahay kaarkaaga hadduu meel fiican ku marayo waxaana rajaynayaa in lagu qaato oo qaxooti ahaan lagu qaato ogow barnaamijkan qaxootiga 125,000 maraykanku qaadanayo iyo barnaamijka lootriga oo 55 qof oo ku qaadanaya maraykan sanadka dambe waa kala labo waa laba barnaamij oo shughul isku lahayn waa maxamed faarax videoga dhammaan saxaabtaada social media la wadaag fikirkaaga ka dhiibo waa mahadsantihiin dhammaantiin